Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another lesson. This is Abino. Inshallah cashar wanaagsan iyo vocabulary qayb aad u muhiim run ahaantii waxa weeye qaybtaas waa religionkii weeye oo ereyadii marka diinta ahaa hore waxaan uga soo hadalnay qaybtii siyaasadda u badnayd inshallah category badan oo vocabulary soo saro u kacan soo badin doona laakiin casharkii hore waxaan hore ugu sheegay in uu muhiim yahay pronunciation. That's English. Haddaad imka ku dhawaaqdo Englishtii wax qaab saxan oo kale English la fahmi karayo yani waa English taas waa sax laakiin dhibku wuxuu ka jiraa san horeba u soo sheegay in qofkii ama ardaygii aan fahansanin ereyga qaabkiisa saxda loogu dhawaaqay qaabka saxda dad ereyga ugu dhawaaqay ka caawinaya inaad fahanto filimaanta wararka intaas oo dhan ma fahmi weyda markay ku hadlayaan Englishta. I'm telling you something bro about this. Your pronunciation is not good. That's the reason you're not gonna able to understand native people or news. So waxa weeye markaa dadkii cadaanka ah wararkii wixii waxa ka dhibka ka jira adiga weeye dhib waa inaad ereyga si sax ah Google ugu qortaa how to pronounce ereyga markaa geysa waxaan hadal ku dheeraan insha Allah. Repentance. Say after me. Repentance qaybtan waxa ka soo pronunciation ma ku soo qoro dhawaaqi ka duwan yahay casharkii hore qaab xamka loo eego kii hore waxaan dhageysadeen dadkii waa in Google kooda qorinay ereyga ku xigay fate heaven paradise labada wajnada waa la yiraahdaa Englishta sidoo kale heaven samada waa la yiraahdaa erka skeena waa la yiraahdaa messenger nabi prophet rasul hereafter آخره marka English la leeyahay waa hereafter halkan kadib dib way aakhiro. Prostrate sujuud weeye bow rukuucid. Spiritual waa ruux spirit ruuxdana waa la yiraahdaa sidoo kale spirit waxa la yiraahdaa firfircoonanshaha xamaasadda waxa waa la yiraahdaa imka tusaale ahaan ciyaartooyda kale waa la yiraahdaa ciyaartooyga spiritigiisa xamaasadiisa ama firfircoonanshiisa sareeya waa spiritigiisa haya marka sidoo kale spirit waxa macnaha kale leedahay waa ruuxda English ruux marka la leeyahay spiritual waana tirada ereyga ugu dambeeya worship. See you next time. anigoo teacher Abbas Jacaali idin socodsiinay insha Allah vocabulary tuu muhiim yahay runaantii oo soo badin doona waxa kaliya taan laakiin ku dardaarmay waxa weeye Google waxaad ku qortaan ereyada halkan ku qoran mid walba waxaad ka horeysiisaa how to pronounce that's cool and you're gonna able to pronounce where is the best way haddii aad san isticmaasho trigan anigu isticmaalo erey kasta gaar u barto dhawaaqiisa filinka wararka waxba isfahmi doonta Englishtaadu gonna improve by every single day. I'm telling you that bro. So inshallah ashkan ya ashkan naxigo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another video. This is Coach Abino. Inshallah waxaynu qaadan doonaa casharkeenan qaybta vocabulary-ga daaran pronunciation bay u badan tahay. Ereyga koowaad waa sovereignty. ereyada markaad dhiganayso inshallah dhawaaqoodu waa so important really to correct your pronunciation. Markaad film daawanayso war daawanayso ma fahmi weyda wax ku hadlayaan aan ku sheego hadaba dhibku waxa weeye ereyada uma baran dhawaaqooda saxda markaad ereyga u barato wuxuu ka caawinayaa inaad si waxa weeye deeply u fahanto marka laga hadlayo ereyga meesha yimaado marka inshallah we just try to pronounce the best way. Sovereignty or qaran madax banaan. Inshallah the other one we try to look the other one collapse waa dumaya burburaya macnaheeduna tastaxaa waa mid markaa dhowr nooc loogu dhawaaqo. Catastrophic just normal and basically you can pronounce it catastrophic and waxaad oran kartaa kale catastrophic halka tiidi ku jirto soft r ku dhawaaq. Rebellion mucaarad taa horna waxay musiibo. ereyga ku xigay waxa weeye underdog means Italian. I know you always been underdog when you are learner qofku markuu yahay qof xiliganaya macay ma qof
buuxa oo this money he need a money to have a lot of bro. So ka socono ereyga ku xigay waa battle say after me iga daba dheh battle. Ereyga ku xigay waa nobility and gallery insha Allah dhawaaqu waa muhiim inaad iska saxdo ereyada marka la joogo oo wuxuu kaa caawinayaa inaad fahanto marka lagu wada hadlayo luqadii si fiican oo deeply u fahanto. We should glory. You can hear what she's saying. Ka socon insha Allah. Ereyga ku xiga sponsorship. We have to listen together how they pronounce the British people, American people, and it's really good insha Allah say ku dhawaaqayaan. Ereyga sponsorship. That's the way they pronounce. That's English. Saa ugu dhawaaq insha Allah aduguna. Ereyga ku xiga wuxuu noqon doonaa sincerity. We try to look this way. Sincerity. We have to listen together. Another one. Sincerity. labadana aan dhageysto way kala duwan yihiin. Midna waa British, midna waa American. This one is British. Say, listen again. Sincerity way caadi ugu dhawaaqay. Tan kalena ka duwan tahay sincerity. Dhageyso ina. Sincerity. Insha Allah saas ugu wanaagsan ku baran kartaa dhawaaqa ereyada. Waan soo badin doonaa. Muhiimadu waxa weeye inaad ereyga dhawaaqiisa saxi karayso. Haddaad dhawaaqiisa saxi karayso waxaad insha Allah awoodi karaysaa inaad fahanto dadkii markay ku hadlayaan ereygii. Maybe feelingkii aad daawanayso ereyga wuxuu ku dhawaaqayaa sincerity sida hadda gabadhu sheegaysay. Adiguna waxaad sugaysay sincerity. Tabina waxaad soo wax kale oo ku hadlay. Hadda waa wada taqaanaaba ereyga in reer wada taqaanayo. Aan ka socon candidate. This one ka waan raadiyeynaba Google-ka. The last one bay insha Allah ka raadin doonaa. taasaan inagu dambaysa qaabkan haddii aan soo badiyo insha Allah waxaan ogahay mostly inuu ka caawin doono inaad fahanto dadka cadaanka ah markay wada hadlayaan. Waana qaabka ugu badan aan sameeyo ereyga dhawaaqiisa oo saxan baan bartaa. Then this way gonna help me to understand, to improve my comprehension. macnaheedu xitaa waxay asar u qaadaysaa fahankaaga qaabkan. Moderate. Tan waa qaabkii Amerikaankii ma waa British. We have to look American action. So I feel that as you know American spelled and British. macnaheedu tan baa ka wanaagsan. Extreme and moderate, which means to preside. Start with the keeping within reason, not excessive or extreme, and let's start with the first syllable, mod. To do this, you're going to press your lips together for that edge. The tip of your tongue to the back of your top front is tense. Modder. Now for the difference in these last syllables. Syllable, the it, just iyadoo kala qaab bay mid weyn baraysaa. Marka horta waxaad ogaataa mar waliba inuu yahay pronunciation so important real. Insha Allah casharkan bayna ugu dambeeyay qaybtaasina way agtahay vocabulary-gu. waxaan ku sii dar lahaa oo aan sii raacinaa insha Allah. arday badan bay weydiisay inta badan American accent. How can I get American accent? sideen ku baran karnaa American accent ka sidee American accent ka wanaagsan macnaheedu mid
benjonia inaan idinku baraarujiyo aad u muhiim ah. taas waxa weeye please you should try to correct your pronunciation, the way you pronounce word. Is that what my sense is that what matter? يعني erayga soo ugu dhawaaqayso weeye in saxdo maaha in qaabka Americanka aad ama qaab there are a lot of accent. waxa jira oo kale Canadian accent baa jira, waxa jira American accent qaar fara badan kala baxa. adigu xoog waxaad saartay eraygan sida saxda ugu dhawaaq, marka si sax ugu dhawaaqdo insha Allah wax kasta way hagaagi doonaan. But you should stop looking for to get American accent. English hadii la fahmayo oo English sax tahay oo macnaheedu wax macna sameeyaysa tahay, that's English bro. waa English taas oo Soomaa. insha Allah waxaan filayaa inaan ku dheeraado casharka. inahaas waa intii aan kusoo koobi karay vocabulary-ga qaybta politician-ka. insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aniga oo teacher Abbas Jaan Ali.